وحمانتا xoriyadiisa dib u helay siyaasi Muuse Cali Jaamac oo muddo dhowr cisho ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso siyaasigan oo maxkamaddu ay ku eedeysay inuu garsoorka u geystay aflagaadho ayaa waxa maanta ay ku dhawaaqay sideentiisa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ee Puntland Abuukar Nuur Jaamac oo ku dhawaaqay siyaasigan sababaha lagu siidayay maxkamaddu iyadoo eegaysa duruufaha jira qiimeynaysa culayska dacwadda cadeymaha iyo jawaabaha la bixinayo waxay go'aan ku gaadhay sidan soo socota maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 269 oo xarigiisu ilaa 3 sano gaarayo faldambiyeedkaasna uu cuskan yahay waafaqsan yahay qodobku waxay uga soo qaaday 2 sano xariga waxay maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira awgood dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto qodobka 269 oo ay qaadato tixgeliso 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin kardo xukunka ku dhacay mar qura faldambiyeedkaas oo uu galay Muuse Cali Jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna cafisay markii uu xaq u lahaa iyadoo loo sabaynayo dhinaca da'da iyo caafimaadka maxkamadduna xoriyadiisa u celisay ugu dambeyntiina waxa warbaahinta la hadlay siyaasi Muuse Cali Jaamac oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xoriyadiisa dib u helo isagoo garsoorka Puntland u mahad celiyay waan u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka xeer ilaalinta iyo gudoomiyaha intaba sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen aniguna waxaan cadeynayaa in iyagaba aan uga lehjecla badnahay dalkayga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay in xoriyadeyda aan dib u helo aan u istaagnahay mal warba in dalkayaga asaasayaashii baan ka mid ah Puntland lambarka 20aad ergadii bari baan ahaa waxaan u taagnahay mar walba wixii dhaliila oo jira oo la tabanayo oo toosinta dalka ah inaan si sharciga waafaqsan oo aan si fiican aqoon u leeyahay inaan waafajiyo aan doonayo dalkayagu inuu horumar iyo baraare iyo barwaaqo gaaro mustaqbalkana carruurtayadu jawi wanaagsan iyo meel wanaagsan ay ku noolaadaan waa mahadsantahay Cabdirashiid Ismaan Shaalco wararka warbaahinta SBC Boosaaso